wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa maanta xariga ka jaray xanaanada daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa. Xafladda xariga jarista xaruntan caafimaad oo laga hirgeliyay xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa, wasiirka waxa ku wehelinayay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Maroodijeex Cabdi Xuseen Cabdi Dheere, madaxa waaxda daryeelka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Sheekh Dhakhaatiir marti sharaf kale iyo culimaadudiin. Ugu horeyn isuduwaha gobolka Maroodijeex ee wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Cabdi Dheere oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay wasaaradda caafimaadka ka go'an tahay in goobaha caafimaadka iyo adeegyada caafimaad ee kala lagu fidiyo magaalooyinka, tuulooyinka iyo guud ahaan dalka Somaliland oo dhan. Sidoo kale Dr. Cali Sheekh ayaa isaguna sheegay inay xaruntani wax weyn ka tarayso baahiyaha adeega caafimaad ee xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa. Dr. Idris Xaaji Nuur oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in toddobaad kasta hal maalin uu adeeg caafimaad oo lacag la'aan gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka ka bixin doono xaruntan loo dhisay dadweynaha ku dhaqan xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa. Ugu dambeynna wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaankan inay ilaashadaan qalabka iyo xaruntan loo dhisay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta farxad noo ah wasaaradda caafimaadka u ah inaanu halkan idinku nimaadno si aanu idinku furro xaruntan caafimaad oo loogu talagalay inay u adeegto dadka reer Sheekh Cumar. sida la sheegay dad 3500 baa ku nool xaafadan may lahayn xarun caafimaad. annagoo ka duulayna hadafka siyaasadeed ee ku wajahan caafimaadka waddanka ee uu hormuudka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo, waxaa wasaaradda ka go'an in ay adeegyada caafimaad meel kastaba geyso insha Allah. waa siyaasadda xukuumadda oo madaxweyne Silaanyo hogaaminayo. annagoo taa ka duulayna ayaanu go'aansanay in halkan oo magaalada ka fog ayna ku nool yihiin dad danyar in xaruntan laga dhigo mudnaanta koowaad la siiyo, la dhiso, maantana aan furno. way qalabaysan tahay. waxaanan ilaahay ka baryayaa in ay u adeegi doonto oo laga faa'iideysan doono adeegyadeeda caafimaad ay ka faa'iideysan doonaan reer Sheekh Cumar, annagoo og in xaafaddu ka fog tahay magaalada, annagoo og dadka intiisa badan inaanay awoodin inay tagaan magaalada oo ay carruurtooda dhakhaatiir u geeyaan lacaga, ayaa wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in Dr. Idris uu yimaado wiigii hal maalin oo uu idiin eego carruurta iyo dadka waaweynba wixii dhakhtar u baahan. marka waxaan idiin rajaynayaa reer Sheekh Cumarow inaad ilaashataan xaruntan iyo qalabka yaalla, inaad ka faa'iidaysataan adeegyada bixinayso, in carruurtiina tallaal joogtaa oo tallaalada aad siisaan. tallaalku waa muhiim, wuxuu ka hortagaa xanuuno badan oo khatara oo dilaaya. marka inaad si joogta ah tallaalka ugu dhammaystirtaan ilmihiina. hooyada uurka leh inay si joogta ugu soo xidhanto xarunta maalintay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso, iyana waa muhiim. hooyadu waxa weeye waxa la ogaanaya xaaladdeeda, iyadoo intay uurka leedahay xaaladdeeda la ogaanaya. haddii la arko inay ama nafaqo daran tahay ama vitamin ka maqan yihiin ama xaalad kale jirto, waa la caawinaya. marka hooyadu markay uurka qaado ilaa inta ka dhalaysana ha la soo xidhiidho, ha u timaado, ha la socoto.